barnaamijka kobciye waa barnaamij tixano ah kana kooban 30 qaybood kuwaasi oo taabanaya nolosha qof kasta oo naga mid ah. Kobciye waa daqiiqado kooban oo kobcinaya naftaada ha u daymo la'aan. Waa diyaarintii iyo soo jeedintii al-ustaad Coach Maxamed Ibn Umar. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada barnaamijkeeni kobciye iyo 10 cinwaankiisu yahay awoodda oraahdu leedahay. Oraahda ayaa lagu tilmaamaa inay tahay wax dunida ugu xoogan. Oraahda waa mid Allah uu ku abuuray koonka oo dhan markii uu yiri kun ahaw. Oraahdu waxay ahaan jirtay xilligii hore, haddana weli tahay mid la adeegsado marka laga hadlayo diinka, aqoonta, suugaanta iyo waliba nolosha dhinacyadeeda kala duwan oo dhan. Wixii ugu horeeyay ee Quraan ahaa ee Allah uu ku soo dejiyay صوبناهنا محمد صلى الله عليه وسلم أي وحي أهاين اقرأ أو أخري وراهذا أي ودي إذا كهشة حلقة أي كسو جيدو أو أي حجة كهليسو هي عدة ربا وراهي هذا اللي رسول كيسا حقه ذا كيم هذا مجرا وراهي اللمد عمل ربر بردي كرو وراهذا وحي النقطة تح أما تراب نوع كستاي النقطة وحي قفك قلبي كيسا سامين kaga tagtaa aan yarayn ama waxay ku sameeysaa kicin waana qaabku waxayna ku xiran tahay hadba qaabka loo dhisay iyo waliba macnaha ay xambaarsan tahay iyo waliba halka ay taabanayso. Markaan dhiganayay iskuulka waxaana la bari jiray oo aan dusha ka qaban jirnay gabayo kala duwan oo aad u qiimo badan kuwaas oo ay mariyeen abwaano kala duwan sida abwaan Saahid Qamaan, abwaan حاجة آدن أفقلع أبوان سيد محمد عبد الله حسن أبوان راقي وقاس تمع عدي سلان عربي يوكو كلو بدن أو صوماليات سيدو كلو وحانا لو ديجي جرى أبوان كلو قبيه دود سيدو قبيه دي شاعرك إسلامك حسان ابن ثابت إيو قبياقي زهير ابن أبي سلمى اللي قومك عابي جري يقولي شاعرك قبيقي سؤالك عجيبك وياهي اللي قومك عابو أبو الطيب أحمد ابن حسين والله يقان أبو الطيب المتنبي murtiyahanadaas oo dhan waxay ahaayeen kuwa wax ku sheega oraahiyada isticmaalana oraahyo aad u qurxoon saameyn weyn ku lahaa bulshooyinkii ay ku dhex noolaayeen. Abwaan Saahid Qamaan oo kamid ahaa abwaanadii ay qaybo kamid ah oraahiyadii gabiyadiisii ku yimid aadka u baaheen ayaa wixii uu yiri waxa kamid ahaa rag waxaan ku maamulay aqaan ama ku maamuusi mase inaynu nahay talnimo meerto noo tahay masalaha ninkan ii goglayn midig ma saarayo ninka aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho. Sayyid Maxamed ayaa isna laga qoray ama loo tiiriyaa inuu yiri rabbaa deeq leh roob baa qabow raaxa nabad baa leh jannaa ruga raxmaan baa barya leh raacis nabi baa leh wardaa radis leh weli baa rila leh rabid shareeca leh. Awaan Yuusuf Dubad Jeexow oo ka hadlayay musuqmaasuqa iyo ayaa isna waxa la sheegaa inuu yiri dhalinyaradan 30 gaarin ee suuqa wada taagan ee suud xariira iyo ka siman saacadii gacanta sida lacagta lagu helay iyo hadaan sababta la ii sheegin hal ay suga biriya saa dambaan qaar silsiladayna. Oraah darteed ayuu Umar radiyallahu anhu islaamka u soo galay waana aayado ku jiray suurada Taaha. Oraah darteed ayaana dagaalo ciidamo ballaaran ay soo kaxaystay u dhaceen sida oraahdii 9 xaraf ka koobnayd ee gabadhii muslimada ahayd ee gaaladu ku xadgudbeen ku dhawaaqday ayadoo gargaar uga dalbanaysa hogaamiyihii muslimiinta xilligaas ee al-Mu'tasim ahaa ayadoo ku dhawaaqday waa mu'tasimaa oo macnaheedu yahay mu'tasimo. Oraahdu saameynteeda aad ay u xooggan tahay mana dhimata xataa hadduu dhinto qofkii afkiisa ay soo martay waxaana kala dhaxla jiilasha kala duwan ee ummadi leedahay ayagoo hadba u soo qaadanaya hal hays markii ay taagan yihiin halkii ay munaasabka ku ahayd. waxaa jira oraahyo bulshooyin dhaqaajiyay kuna beeray xamaasad iyo inay dhaqaaqaan oo ay ka shaqeeyaan danahooda sida oraahyadii uu jeedin jiray Malcolm X iyo Martin Luther King ee dhiirigelinayay dadkii madowga ahaa ee Mareykanka xilliga midabkoorka uu ku hayay. Oraahda cajiibka ah
waxay leedahay waxyaabo tusinaya. waxaana ka mid ah in hadda ka hor uu nebiga sallallahu alayhi wasallam saxaabigii oraahda iyo cajiibka ay leedahay waxyaabaha tusinaya waxaa ka mid ah in hadda ka hor saxaabigii Shariid ibn Suwayd al-Thaqafi oo nebiga dameer la saarnaa uu nebigu ka dalbaday inuu u mariyo meerisye ka mid a gabaygii Umayya ibn Abi Salt. markaasuu saxaabigii Shariid ahaa mariyay meerisyo dhowr ah. markaasaa nebigu yidhi soo wad. markaasuu u siyaadiyey. markaasuu yidhi soo wad ilaa 100 meeris uu gaarsiiyey. markaasuu nebigu yidhi Umayya ibn Abi Salt waxa uu ku dhawaaday inuu muslimo kadib markuu ka yaabay waraahiyadiisa iyo wanaagga ay tilmaamayaan. Allah subxaanahu wa ta'ala asaga oo ka hadlaya oraahda iyo qiimaheeda iyo qiimo la'aanteeda ayuu suuratu Ibraahim ku sheegay in oraahda wanaagsan la mid tahay sida geed wanaagsan oo xididadiisu dhulka ku yaalaan halka laamihiisu xagga samada ay jiraan. oraahda xunna ay la mid tahay sida geed xun oo dhulka dushiisa laga siibay. oraadii xooganeed ee uu jeediyay Taariq ibn Ziyaad muslimiinta maalin ee uu ku yiri dadow meel loo baxsadaa maanta ma jirto, baduna waa gadaashiina, cadowgana waa hortiina, waxaan ahayn Allah iyo adkaysi idinma badbaadinayo maanta, ayaa la sheegaa inay ciidamadii muslimiinta ahaa ay dhiirigelisay sababna u noqotay inay furtaan Andalus. orahdii caanka ahayd ee Xajaaj jeediyay markii loo soo magacaabay maamulka Ciraaq ee ahayd waxaan arkaa madaxyo bislaaday xilligii la guri lahaana jooga, ayaa iyana loo aaneeyay inay ahayd midii Ciraaq xasilisay oo soo afmeertay fidnadii ka jirtay. oraahdu waa mid saameyn xoogan ku reebta dadka naftooda, waxayna noqotaa mid ku beerta ifafaalo wanaagsan iyo farxad ama niyad iyo murugo. Xasan al-Basri ayaa waxa lagu yiri muxuu hadalkaagu la kooban yahay? markaasuu yiri waxaa miisaamay oraahda inta aan ku dhawaaqin ayaan miisaamaa, hadday wanaagsan tahay oo miisaanka wanaagga ay ii fuulayso waan dhahaa, hadday xun tahay oo miisaanka xumaha la igu darayana waan ka gaabsadaa. waxaan ogaaday in oraahdayda badankeed la saaray miisaanka xumaha, markaas ayaan hadalkayga gaabsay ayuu yiri. waxaa jiray arday aan weli da'diisu dhaafin 6 jir, wuxuuna dhiganayay iskuul, wuxuu ahaa mid aad u su'aalo badan. maalinkii dambe ayaa macalinkiisii ka soo eriyay iskuulka oo uu ku soo yiri waxaa tahay dabaal aanan waxba baranayn weligii. hooyadiis ayaa soo kaxaysay, waxayna ku tiri waxaa ardayda iskuulka joogaa gabi ahaantood ayaad adigu ka caqli badan tahay, iskuulkana munaasab kuma ahayn. kadib inay guriga wax ku barto ayay bilowday ilaa uu ka weynaaday. maktabadii magaaladuu deganaa kutubtii taallay oo dhanna wada akhriyay asagoon da'diisu weli dhaafin 11 jir. kadib waxa uu bilaabay inuu curiyo aalado kala duwan oo nolosha bini aadamka wax ka bedelaya. waxyaabaha uu ikhtiraacay ayaa la gaarsiiyaa tiro ahaan ilaa 1093 curin iyo ikhtirac. kaasi waa ninka loo yaqaan Thomas Edison oo ah ninka soo hindisay nalka aan ifsano maanta. haddii aad macallim tahay ama aad waalid tahay, maalin kasta oraah wanaagsan iyo dhiirigelin kuwad ilmaha aad wax barayso ama kuwa aad dhashay, waxaadna ogaataa inay saameynayso oo ay ka soo muuqanayso dadaalkooda iyo waxtarkooda, isla markaana hadday hooseeyeen xataa dhiirigelintaasi sare u soo qaadayso. ee fadlan ka ilaali caruurta oraahda niyadooda jebinaya. oraahdu awood ayay u leedahay ha noqoto mid lagu dhawaaqayo oo afka laga sheegayo ama mid qoran oo meel laga akhrinayo waxayna toos u abaartaa qalbiga ruuxa ay gaartay ayadoo ku reebta saameyn dhalisa isbedel dhanka wanaagga ah ama dhanka xun. aan ka fiirsano oraahyada aan dadka kale nagu hareeraysan u adeegsanayno sida ilmaha aan dhalnay, kuwa aan wax barayno ama kuwa aan saaxiibada nahayba. waxaa laga maarmaan ah in waalidka iyo macallimiinta iyo culimada khudbaynaysa ogaadaan awoodda oraahdu leedahay iyo saameynteeda, una adeegsan sida wanaagsan oo dadka dhiirin gelin karta kana soo saari karta kuwa waxtar leh, iskana ilaaliyaan oraahyada niyad jabka keeni kara. ugu dambeyn, maadaama aan ogaanay awoodda oraahda iyo saameynteeda, waxaan laga maarmaan ah inaan iska ilaalino oraahyada xunxun ee niyadeena jebinaya ee dadka qaar nagu dhahayaan, horena aynan ka aaminin oo aan iska xanibno qalbiyadeennana ka xiranno si aynan gudaha u gelin oraah kastoo aan wanaagsanayn. mahadsanid.
diiwaangeli wixii aad faa'iiday isku day inaad dhaqan geliso siina faafi